maarayaha guud ee wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa oo wehelinaya wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka iyo weliba sidoo kale Dr. Adna Aadan Ismaaciil ayaa si rasmi ah waxa ay u dhagax dhigeen laab casri ah oo loo dhisayo wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa. laabkan cusub ayaa waxaa hirgelinaya isla markaana waxaa dhisaya sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF. ugu horeyna halkaasi waxaa ka faahfaahiyey maarayaha guud ee wakaaladda biyaha Hargeysa Ibrahim Siyaad Yunis faa'iidooyinka ku duugan laabkaasi casri ah ee loo dhisayo wakaaladda biyaha Hargeysa. waxaanu yidhi laab casri ah oo loo sameeyo wakaaladda biyaha Hargeysa oo ka kooban dhisme iyo qalabkiisii oo ay maalgelisay sanduuqa horumarinta Somaliland. dhismahana ay fulinayso shirkadda Somaliland Road Construction Company la yiraahdo. qalabkana ay soo iibinayso shirkad international oo Jarmalka laga leeyahay iyo Ingiriiska. مشروعاً فائدة سواء تهاي نرشوا بيها بيوهنا ونرشة سنو نوصلنا هاي بيها هرجيسة إما كلمات دي كو مستقبل كمان دونات كو فربها الله واللوجيه كواليتي وبيعض في عن هذا نوع ضروري يعني مر هذي بيه هنا نرشي هنا المركز طلع تشجرايو معلول طلع تشجرايو هل كسر بحيان تشجرايو هل كسر عن تشجرايو هل كوجود ما يسوس كو هل كقول كفراني قصبة الجوريسية لا تشجرايو كواحد قرشة هاي وها أنا لك عشان وزارة قرشة تقرنك horumarinta Somaliland in Hargeysa yeelato laab casri ah oo wakaaladda biyaha Hargeysa shaqarayso. ilaahay baan ugu guuleeyay mashruuca in badan baan hawshiisa ku jirnay. waxa maanta halkan u joognaa dhagax dhigiisii. Heesta kalena Dr. Adna Aadan Ismaaciil ayaa iyaduna uga mahadnaqday cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii loo hirgelin lahaa xaruntaasi cusub ee shaybaadhka ah ee lagu baari doono biyaha dalka Somaliland. sidaad ogtihiin biyuhu waa nolosha laakiin biyuhu waxay xambaaraan waxyaabo badan oo caafimaadka waxyeelaya. hadday noqoto wax wasakh ah oo cudur keena oo biyaha soo raaca ha noqoto macdano ku jira dhulka hoostiisa oo biyaha soo raaca oo iyaguna ma caafimaadka bini'aadamka iyo wixii cabba xoolaha iyo dadkaba waxyeello u geysta. waxaan oran karaa waa horumarada waaweyn ee Somaliland ay gaadhay. gabagabadiina wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranka علي السلام جردي أي يسقون الكاسي فاين كبحيي حرمتن عصب يا شيبار كاي الله لسه بيها مقالة هرقيسا وحنو يري وحن ما أنت هالكل شغلنا دقح دقة شيبار كا إلى أن أنت تيجي بيها ومركي وجوه الرئيسي تاريخ الصومالي ما هو صومالي لقى هذا تيجي بيها تسقع بيها دولته هي هراني تشرين تي إنجليز كاني تشرين تركي كهري باني تشرين مساردي يقول حيسي باني تشرين لبعتني عشان تصنعوا بتشوفني إلى الكتر اللي وصلنا وحكمت يقولها وين سومال لقالي كما يسا إيمان ضد بكسو شغيني معلم بدك حبا ميل اللي دقي طلابة الغادية طلابة الكرلي وح حكومة هذا تشوكته وقايمين مدحوين أحمد محمد محمود سيلاي عيكوسن تنتهيتي هرمركا وحنا تصارى مرخاتي ودبي ميد بحال دبي كان لسيسو وشيبار كان مكان راح دقن عمر أو علي تي في عالمي بلشو هرقيسا.